magacaygu waa Yaxye Cabdi Cali Yaxye Baash waxaan ku dhashay xaafadda Shirka ee magaalada Hargeysa 1994 bishii 3 27keedii waxa aan ku koray ku kobcay maantana aan jooga isla magaalada Hargeysa dhalinay taftayday tala kuway ku socotay tira koob haday tahay kuwa aan tirsanayay taya iyo laba runtii waagi aan ku jiray dugsiga sare iyo intii aan hayaanka waxbarasho labadaba ku jiray maalin qura kuma fikirin ama isma oran waxa aad noqon doontaa hal abuur ama qof suugaanta xiiseeya maadaama aanan awal xiiseyn jirin se waxaan idhaahdaa mararka qaar waa ilhaam ilaah iyo wax ilaahay ugu socday garwadeen kitaabku hayiya amarka tuugooyo tala xumo wanaaga tartaba soo ma kala tuurto hadii aan tayaba loo dayeyn ruuxa lagu taamo abtirsiinta reerku galiya taajka laba caaqil waxba lagu ma taandaysan kara tuug la soo diray ka tabaabushaysta qabiil duunku wada tuuriyeen maadaama suugaantu tahay wax dareenka maxsuul u ah oo marka uu dareen yimaado ay badanka suugaantu timaadaa waxa ay suugaantu ku xirantahay hadba dhererka ama balaca ama dhumucda uu leeyahay dareenkaagu markasta oo dareenkaasi yahay dareen xoogan waa markasta oo gabaygaasi xooganaanayo dareenkaasi xilligu doonaha ku qabto habeen ha ku qabto aroor ha ku qabto gelin dambe ha ku qabto xilligu doonaha ku qabto muhiimad waxa weeyaan in dareen xoog leh ku qabto layaabada maansadayda layaab malakii la yaabay kulay adigu waa la yaabtay layaabadan aan dhuraayo layaab se waxaa lahaaday layaabba nimaan ka qaadin layaabba wixii markii hal abuur kasta ama abwaan kasta ama qof kasta oo wax curiya waa inuu kaga duwanaadaa qofka kale ee dhigiisa isku waqtiga nool yihiin waa inuu wax kaga duwanaadaa tusaale ahaan haddii qofkaasi uu ka hadlo qabyaaladda waa in adigu wax kale ka hadashaa aad isku daydaa inaad wax kale ka hadasho haddii aad ka maarmi weydo ama dareen qabyaaladeed oo xoogani ku qabto oo ay qasab noqoto inaad qabyaaladii ka hadasho waa inaad isku daydaa inaad qaab kale ama dhinac kale ama meel kale ka soo joogsato qabyaaladii oo aad nooc kale ugu dhigto bulshadii suugaanta markii ugu horeysay waxaan ku faafiyay baraha bulshada ay ku kulanto ay ka mid ka yihiin Facebook ama YouTube ama Twitter ama waxyaabaha la midka ah runtii labadii sano ugu horeeyay ama saddexdii sano ugu horeeyay waxaan ka heli jiray falcelin ama feedback ay dadku isiiyaan oo dhaliila leh oo toosin leh oo tala leh oo waana leh intaba waan ka heli jiray runtii taasi waxay keentay in suugaantaydii ay dhiibsanaato oo qaladkeedii maadaama dadkaygu toosinayaan oo leeyihiin waxaa sax waxaa toosi marka aan wax fiican soo qoro lagu hambaliyeynayo marka wax yara qalooca lagu toosinayo waxay runtii iga caawisay aniga iyo rag badan oo qayrkayba waxay ka caawisay inay suugaantoodu toosto inay wado iyo marin saxaba marto ay aad iga caawisay hal celintaasina waa ta keentay maanta inay suugaantaydu hadiiba ay isbedel keentay hadiiba ay horumar iyo horusocod ay la timi dadkan aaminsanahay hal celintooda iyo feedbackoodu inay keeneen 90% diyaarada mooto guuxa dabaabada gaari roora ma curin miig iyo wax duula ma tagin samada dusheena dagaarana maan cagaynin markaan se dabuubahayga duntiya gabay maansadayda dux iyo hal abuurka sheegto ayaan faanaa in doora suugaantu waxyaabaha naadirka ah ee ay aniga ii qabato waxa kamid ah waxa ay ii cabirtaa dareenkayga markasta oo ay dareenkayga cabirto markasta wax aan tabanayo iyo meel ii ololeysa aan 4 bayd iyo 3 bayd aan ku cabiro waxa aad xaqiiqatan moodaa in meeshii ololeysay la ibaqtiyay oo waxaan u isticmaalaa mararka qaar sida kiniinka oo kale oo kaarjabiya ii tahay mararka qaar waxa ii tahay wax aan anigu ilaahay ku bariyo oo ma garanaysaa ay adoonnimadayda iyo waxa aan ahay iyo daciifnimadayda aan ilaahay ugu muujiyo mar waayay cibaado mar waxa ii tahay wax aan qayrkay ugu faano oo marka ninka qalaad igu raado kanaan haystaa oo daarahan haystaa oo waxaan haystaa afkayga iyo dhaqankayga iyo suugaantayda iyo beedidkayga iyo maansooyinkaygu waxa ay yihiin bilada igu taxan oo runtii aan ku faano ku dhaato